kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal idil ahaantiinba ku soo dhawaada qaybtii 22aad ee buugga sheekafaneedda ah ee Saxarla ee uu qoray Faarax Maxamuud. qaybta 22aad ee buugguna waxa ay ku bilaabmaysaa sida tan. markii ay suuxdintii ka soo kacday kadib waxay Saxarla indhaheedu ku dhaceen haweeney waayeel ah oo dhowr sariirood u dhaxeeyaan, dhowr qofna hareeraha ka fadhiyaan. haweeneyda oo dhowr barkimo barkanayd oo madaxeedu kor u soo kacsanaa ayaa indhaheedu waxay qabteen Saxarla oo xaggooda soo eegaysa. haweeneyda da'da ahayd ayaa nin dhalinyaro ah oo kursi dhinaceeda yaalay ku fadhiyo oo xaggeeda u sii jeedo hoos ula hadashay oo dhegta wax ugu sheegtay. ninkii dhalinyarada ahaa ayaa xaggii ay Saxarli fadhiday dib u jaleecay, kadibna inta uu degdeg u istaagay ayuu xaggeedii u dhaqaaqay. markii ay aragtay ninka xaggeeda u soo socdana, go'ii ay huwaneyd ayay isku uruurisay si ay korkeeda u asturto. intii uu ninku ku soo socday si fiican ayay u eegaysay. wejigiisa ayaa qof ay taqaano u la ekaaday, haddana maadaama aanay cid ay garanaysa meesha ka filayn, shaki ayaa galay. intii uu dhexda ku soo jiray uu dhoola cadaynayay, laakiin markii uu dhowr tallaabo u soo jiray ayay garatay. isagoo wejigiisa farxadi ka muuqato, xoogna u qoslaya ayuu salaan u fidiyey, kadibna gacanta ka dhunkaday. iyana intay damacday inay gacanta ka dhunkato ayay haddana xishootay oo gacantii dib ula noqotay. intii afka gacanta saartay ayay ku dhaygagtay, iyadoo u qaadan weyday sida kadiska ah ee ay u kulmeen. iyagoo weli isku dhaygagsan oo aan kelmadii odhan ayay gabadh bannaanka ka timid sariirtii islaantu ku jiiftay soo dul joogsatay. wax yar kadibna markii ay wada hadlayeen, inantii ayaa iyadoo xoog u tallaabsanaysa u soo dhaqaaqday xaggii sariirta ay Saxarla jiiftay. sidii ay u soo ordaysay ayay dusha kaga dhacday Saxarla oo ay bilowday inay dhabannada ka dhundhunkato. Muxibba oo indhaheeda ilma ka dareeraysa ayaa tidhi, ii waran abbaayo, inaad nooshahayba uma malaynayne. Saxarla oo ilmada ka socota qarinaysa ayaa labada gacmood indhaha saartay. Samaan ayaa intuu xaggii sariirtii hooyadii Madiina jiiftay u dhaqaaqay yidhi, Muxibbo, hooyo ayaa dhakhtarkii u yimide, waan idiin soo noqonayaa. Saxarla ayaa intay gacmihii indhaha ka qaaday oo kor u soo fadhiisatay Muxibbo ku tidhi, ma hooya qofka meesha jiifa? waxay ugu jawaabtay Muxibbo, haa abbaayo, hooyo waaye. iyadoo sariirtii ka degaysa ayay weydiisay, maxaa hooye ku dhacay? Muxibba ayaa ugu jawaabtay Saxarla, abbaayo dagaalkii Xamar ayaa dhaawac ku gaadhay oo xabad ayaa laga soo saaray. iyadoo weli dagaaladii Xamar iyo wixii dhacay sii wada, Muxibba ayaa Saxarli markiiba sariirtii ka booday oo xaggii sariirtii Madiina jiiftay u dhaqaaqday. sidii ay u sii ordaysay ayay Madiina dusha kaga dhacday oo bilowday inay dhabannada ka dhundhunkato. kadibna Madiina oo ilmada Saxarla ka dareeraysa gacanta kaga tiraysa ayaa tidhi, maasha allah, weli quruxdaadii waxba iskama bedelin. iyaga oo weli isla yaaban sida cajiibka ah ee ay u kulmeen ayaa dhakhtarkii Saxarla oo raadinaya yimi, una sheegay in caafimaadkeedu fiican yahay oo ay bixi karto. Muxibba ayaa Saxarla weydiisay, annaguna maanta ayaanu baxaynaaye, xaggee degantahay abbaayo? Madiina ayaa intay hadalkii Muxibba ka boobtay tidhi, naa meeshay doontaa deganaatee, hadda waynu iswada raacaynaa, ma innagaa iswaraysanayba. kadibna Saxarla ayaa sariirtii ay ku jiiftay ku noqotay si ay u soo labisato oo u diyaargarowdo. markii ay kulligood diyaar noqdeenna waxay raaceen baabuur dibadda ku sugayay oo uu Samaan soo diyaariyey. markii ay gaadheen gurigii ay deganaayeen oo ku yaalay xaafadda Islii oo Samaan u kireeyey markii uu Maraykanka u dhoofay kadib, waxay bilaabeen inay ka sheekaystaan xaal adduunyo iyo wixii u kala dambeeyey muddadii dheerayd ee aanay is arag. Madiina oo Saxarla uga warramaysay xaaladii reer Cabdulle waxay u sheegtay in oday Cabdulle, wiilkiisii curad ee Muumin, iyo gabadhii ku xigtay ee Duniyo kulligoodba dagaalkii sokeeye ee Xamar lagu dilay. Saxarla ayaa haddana halkii oohin ka bilowday. waxay ka samri weyday oday Cabdulle oo aad ugu wanaagsanaa, hiil iyo hoob badanna hadda ka hor u galay. Saxarli muddadii ay guriga Cadar Duwane ka carartay ayay dib u raadisay reer Cabdulle. waxay la kulantay Muxibbe iyo Samaan oo dad waaweyn noqday. saaxiibtinimadii reer Cabdullena halkaas ayay dib uga sii kobocday, maadaama reer Cabdulle dhaqaale ahaan xaalad adag isaga noolaayeen. Saxarli way ka qarisay xaaladeeda, laakiin iyada ayaa mar walba booqan jirtay. hase ahaatee, markii Cali Aboor la dilay ee noloshii ku sii adkaatay,
ayay reer Cabdulle gurigoodii ku noqotay, laakiin waxay dariskii u sheegeen inay xaafadda Madiine u guureen oo aanay garanayn meesha ay ka degan yihiin. Sidaas ayay mar kale ku kala lumeen reer Cabdulle iyo Saxarle. Madiine waxa kale oo ay uga sheekaysay noloshii adkayd ee ay xerada qaxoontiga ee Dhadhaab kala kulmeen intii aanu samaan dhoofin. Saxarle oo ka yaabtay sababta ay isku arki waayeen ayaa weydiisay, ma Dhadhaab baad joogteen? Madiine ayaa Saxarle dib u weydiisay, ma Dhadhaab baad adiguna joogtay? Intay hoos u foorarsatay iyadoo ilma ka socoto ayay ugu jawaabtay, haa. Kadibna Madiine ayaa weydiisay, maxaad eedda xasuusatay? Saxarle oo weli hoos u foorarta ilmadiina ka socota ayaa tidhi, waa meeshii wiilkaygii Bilaal ku dhintay. Madiine ayaa intay labada gacmood madaxa saartay oo hoos u foorarsatay tidhi, innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun, miyaan ogaabay inaad wiil dhashay? Madiine oo hadalka sii wadata ayaa weydiisay, naamakii berigii lagugu qasbay ayaad ilmaha u dhashay? Saxarle oo hoos eegaysa oo sacabadeeda isku xoqaysa ayaa ugu jawaabtay, haa, laakiin markii dambe wuu ii fiicnaa, balse dhibaatada ugu weyni waxay igu dhacday markii la dilay kadib. Madiine oo wejigeeda naxdin iyo yaab ka muuqda ayaa weydiisay, la dilay oo yaa dilay? Kadibna waxay u sheegtay in isagoo Sacuudiga ka soo laabtay madaarka laga qabtay oo inta la qafaashay safafkii hore ee jabhadaha mucaaradka lagula dagaalamayay la geeyey, halkaasna uu ku dhintay. Madiine ayaa intay tusbax gacanta midig ugu jiray hoos u eegtay oo wareejisay tidhi, amar Allah, dad ma hadhin. Habeenkaas intiisii badnayd laba indhood isuma keenin oo waxay ka sheekaysanayeen dhibaatadii ay dagaaladii Soomaaliya ka dhacay iyo xeradii qaxoontiga ee Dhadhaab kala soo kulmeen. Markii ay Madiine seexatayna weli waxa sheekadoodii halkii ka sii watay Saxarle iyo Muxibbo oo sheeko badan isugu laabnayd muddadii dheerayd ee ay kala maqnaayeen. Mar ay Madiine weydiisay sababta dhakhtarka loo dhigay, waxay Saxarle u sheegtay in madax wareer ku dhacay, kadibna ay dhulka ku dhacday oo ay suuxday. hase ahaatee wax tafaasiil ah uma gelin. Markii ay iyada iyo Muxibbo isu kaliyeysteen ayay u sheegtay waxa ku dhacay iyo xumaanta uu Keenadiid ku sameeyey. Muxibbo oo hore u ogay xiriirkii Saxarle iyo Keenadiid ka dhaxeeyay iyo sidii ay ugu hanweynayd, maskaxdeeda ayay ka dhaadhici weyday. Saxarle waxa indhaheeda ka soo daatay ilmo markii ay sheekadii Keenadiid u gashay ee ay u sheegtay sababta ay u suuxday inay isaga dartii ahayd. Muxibbo ayaa intay gacanteedii midig garbaha ka saartay Saxarle iyadoo wejigeeda eegaysana tidhi, abbaayo iska samir, kulligeen waan ognahay in aan nin Soomaaliyeed isku hadlayn lahayne. Sidii ay labadoodii u sheekaysanayeenna waagii ayaa ku baryey. Kadibna Madiine oo salaadii subax u soo kacday ayaa aragtay inay weli soo jeedaan. Madiine oo ka yaabtay waqtiga dheer ee ay soo jeedaan ayaa tidhi, bisinka iyo yaasiinka ma sidii ayaad u soo jeedaan? Muxibbo gabadhu ha kaa seexatee, warka ka dhaaf. galabnimadii casarka dabadiisii ayay Madiine ugu yeedhay Saxarle qolkeedii, waxayna ka waraysatay xaaladeeda iyo meesha ay ku nooshahay. Waxay u sheegtay in ay hablo ay Nairobi isku barteen inta badan la degan tahay, mararka qaarkoodna ay la degan tahay reer ay marmar u shaqayso. Kadibna Madiine waxay u sheegtay Saxarle inay iyaga la joogto oo wixii Ilaahay siiye halkaas ku wada cunaan. Waxa kale oo ay u sheegtay in ilaa iyo intii samaan dhoofay uu masruufka u soo diro aadna isaga wanaagsan yihiin. Waxa kale oo ay u sheegtay inuu sponsor u xareeyay oo laga yaabo inay dhoofaan. 2 casho markii ay ka soo wareegtay markay Saxarle guriga Madiine timid, ayay galabnimadii Jimcaha Muxibbo u yeedhay Saxarle oo u sheegtay inay suuqa isu raacayaan. Inkasta oo ay dhowr shay oo nadiif ah haysatay, Saxarle dhar badan oo ay ku xaragooto ma ay haysan. Markii ay suuqa tageen ayay Muxibbo u sheegtay Saxarle in Samaan lacag ugu dhiibay si ay dhar ugu soo iibsato. Saxarle iyo Samaan intii ay guriga wada joogeen, hadal badan ima dhexmarin oo waxaad moodaysay inay yara kala xishoonayeen. Lacagta uu Muxibbo Samaan ugu dhiibay si ay dhar ugu soo iibsato Saxarle, maskaxdeeda ayay ka weynaatay badnaanteedu. Kadibna Saxarle ayaa Muxibbo ku tidhi, weligay dhar intaas tiro leeg mar kaliya ma wada iibsan. Markii ay gurigii ku soo laabteenna, Madiine ayaa Saxarle qolkeedii ugu yeedhay oo ku tidhi, eedo kaalay, dharka isku eegaan aniguna ku arke. Saxarle oo dhoola cadaynaysa oo wejigeeda xishood ka muuqda ayaa qolkii Madiine soo gashay, iyadoo ay Muxibbana daba socoto. Kadibna Saxarle ayaa dharkii bilicda wacnaa marba mid isku eegtay. Markii ay mid bixiso oo mid kala gashatana, Madiine ayaa tidhaahdaa, bal dhankaasu dhaqaaq si ay u eegto sida ay ugu soo baxday. Markasta oo ay mid cusub gashatana waxa ay tidhaahdaa, maasha Allah, kan haba bixin.
saxarla ayaa si kadis ah mar keliya dhulka u fadhiisatay oo himbilowday. Madiina ayaa intay degdeg u kacday oo xaggii saxarla u dhaqaaqday tidhi, bismillaahi, eedda maxaa kugu dhacay? Kelmad ma ay odhan ee oohinteedii ayay hiiqda gurtay. Muxibe iyo Madiina ayaa isugu yimid oo way aamusiin kari waayeen. Markii in saacad barhkeed ku dhow ay ka soo wareegtay ayaa saxarliintay Madiina isku duubtay ku tidhi, waxaan idinku abaalguda garan maayo. Waxay xasuusatay markii iyada oo yar oo rafaadsan ay Madiine suuqa Xamar Weyne u kaxaysay oo ay u iibisay dhar aad u qurux badan. Waxaa ka soo wareegtay dhowr iyo 10 sannadood maalintii Madiine suuqa dharka uga iibinaysay. Kadibna Madiina ayaa tidhi, hooya sidaas ha odhan, adiga iyo carruurtaydu isugu kaymid ayaa tihiine. Habeennimadii ayaa xanuun loo maleeyay kaneeco uu ku soo booday Muxibo, waxaana qabatay xumad aad u weyn. Waxaa subaxdaas quraacdii samaysay saxarla, iyadoo markaas weelkii xalaysa ayaa gacanta waxaa ka saray quraarad bakeeri jabay ka hadhay oo biyaha ku dhex jirtay. Dhiig xoog badan oo istaagi waayey ayaa ka yimid. Madiina ayaa u yeedhay Samaan oo qolkiisii ku jiro oo markaas qureec ay saxarli u geysay dhammaystay. Sidii uu u soo ordayay ayuu gacantii saxarle ku dhagay oo meeshii dhiigu ka socday suulkiisa ku cadaadiyay si uu dhiigga u joojiyo. Intii uu dhiigga joojintiisa la halgamayay, saxarlina wejigiisa ayay eegaysay. Markii uu dhinaceeda soo eegayna, intay hoos u qosashay ayay tidhi, waad ku mahadsan tahay dharkii qaayaha lahaa ee aad iibisay. Samaan ayaa Madiina weydiiyey, hooyo, dhakhtar halkan ma ka dhow yahay? Aan gabadha geyne. Madiina ayaa ugu jawaabtay Samaan, bal horta maradan ku duub oo eeg in dhiigu istaago. Markii uu maradii si fiican ugu duubayna dhiiggii wuu joogsaday. 7 casho markii ay ka dhinnayd waqtigii uu Samaan dhoofi lahaa ayaa iyagoo sheekaysanaya oo qolkoodii ku jira Muxiba ku tidhi saxarla, berrita suuqa ayaynu isu raacaynaa, waxaan rabaa inaan qofku baro. Saxarla ayaa weydiisay, qof maxaya? Waxay Muxiba ugu jawaabtay, abbaayo, wiil aanu asxaab nahay oo dusha kaa arkay oo kaa helay ayaa igu yidhi, ibar. Saxarla oo niyad jab weyni ka muuqda ayaa ugu jawaabtay, walaal, weligii rag ma shukaansan, hadeerna xaalkayga waad og tahay oo ninba niyadu ma hayo. Markii doodoodii socotay muddo saacad ka badan, waxay saxarli ka aqbashay inay sarkaan ninka iyadoo Muxiba la socotaa, shukaansina aanu meesha soo gelin ee ay isbarasho keliya noqoto. Muxiba ayaa iyadoo la kaftamaysa oo xidhiidhkii keenadiid ka hadlaysa saxarle ku tidhi, abbaayo, ninka aad yaraantii isku taqiineen waxba ha iska daba tuurin, rag oo dhan ayaan isku hallaynba lahayne. Maalintii ay arrinta ka wada hadleen habeenkeedii ayay Muxiba u sheegtay saxarle inay magaalada hoose u dhaadhacayaan si ay ninkii ula kulmaan. Kadibna saxarla ayaa tidhi, walaalay maad inaga daysid, weligay magaalada hoose uma dhaadhicin, muxuusan ninku meeshaas fog ka qabanayaa? Hase ahaatee, xoogaa markii ay doodeen kadib, waxay saxarle aqbashay inay israacaan. Markii ay diyaar garoobeen kadibna, waxaa bannaanka soo joogsaday tagsi ay hore u ballamisay Muxibo si uu magaalada hoose u geeyo. Ilaa iyo intii ay saxarli magaalada Nairobi timid, weligeed islii meelna uma dhaafin. Ilaa intii ay sii socdeen waxay daawanaysay quruxda magaalada iyo dadka tirada badan ee isdhaafaya. Ugu dambeyntiina waxay gaadheen maqaayad qurux badan oo magaalada bartamaheeda ku taala. Waxay ahayd markii ugu horreysay ee ay weligeed saxarli maqaayad ajnabi cagaheeda geliso. Wixii dadka buuxay markii ay aragtay ayay isku qasawday, waxayna ku sigatay inay dib u cararto. Hase ahaatee, hore ayay u socotay markii uu dhiirigeliyey nin dhalinyaro ah oo dadka soo dhaweynayay. Kadibna waxa uu fadhiisiyey miis bannaan oo maqaayadda xagga ugu dambaysa yaalay. Intii ay sii socdeen, saxarle xishood dartiis dhinacna ma eegin. Markii uu wiilkii fadhiisiyeyna, hoos ayay u foorarsatay sidii ay miiska daawanayso. Saxarle oo weli yaaban ayaa markii uu inankii soo dhaweeyey ka dhaqaaqay Muxibo weydiisay, Muxibo, muxuu ninku halkan ka soo doonay? Miyaanu Soomaali ahayn? Markii ay cabbaar fadhiyeen ee cabitaan loo keenay, ayay Muxiba ku tidhi, abbaayo, musqusha ayaan gelayaaye, isii sug. Saxarle ayaa Muxibo oo xaggii musqusha u sii socota kasii daba tidhi, naabal ha soo daahin, meel iga yaabisay baad i keentee. In ka yar 5 daqiiqo markii ay Muxiba sii maqnayd, ayay saxarle aragtay nin Soomaaliya oo albaabka ka soo gelaya. Naxdin ayaa wadnihii boodbooday, waxay samaysana way kala weyday. Haddii ay carari lahaydna, dhinacii albaabka ayuu ka soo socdaa, iska daa wax kale. Xitaa waxay ka fakartay inay Muxibo musqusha kaga daba tagto. Intii maskaxdeedu doodaysay ayay aragtay ninkii oo 10 tallaabo soo jira. Si fiican ayay u eegtay, mise waa Samaan.
dhulka uunbaa la goyn naxdintii ay naxday. Sidii uu u soo socday ayuu inta uu salaamay kursigii horteeda ku beegnaa fadhiistay. Garbasaartii ay huwanayd intay dacalkeeda afka ku qarisay ayay qosol gariir aanay filayn ku dhufatay oo ay tidhi, maxaad meesha ka soo doontay? Inta uu cabbaar wejigeeda eegay sidii wax ku dhaygagay ayuu gacantiisa midig saxarle gacanteeda bidix oo miiska saaran dusha ka saaray sidii wax miiska ku cadaadinaya. Markaas ayuu ku yidhi, ninkii aad sugayseen waa aniga. Intay sidii wax sasay afka kala qaaday ayay haddana labada gacmood saartay, iyadoo aan kelmad odhan ayay intay degdeg u kacday xaggii musqusha u qarartay. Muxibba oo musqusha dhex taagan oo muraayad isku eegaysa ayay saxarle oo ordaysaa u gashay. Kadibna intay dhirbaaxa la dhacday ayay ku tidhi, aabbahaa cune, maxaa sidaas iigu gashay? Muxibbana intay qosol la dhacday ayay ku tidhi, waa lagu tashaday. Wax yar kadibna labadoodii oo wada socda ayaa musqushii ka soo baxay oo miiskii Samaan fadhiyey ku soo laabtay. Waxa iyaduna sugaysay gabadhii dalabkooda qaadi lahayd. Samaan ayaa markay fadhiisteen weydiiyey, maxaad cunaysaan? Mise aniga ayaa idiin dalba? Saxarle ayaa intay miiniyuugii cuntada ku qornayd isku laabtay tidhi, adigu wuxuun inoo dalab, adigaa garanaye. Saxarle oo hadalka sii wadata ayaa tidhi, inaga ilaali walaal, doofaar yaa laynoogu darine. Samaan ayaa ugu jawaabay, abbaayo, halkan doofaar laguma iibiyee, ha ka warwarin. Cuntada intii ay sugayeen hadal badan laysma odhan, marka laga reebo dhowr kaftan ah oo saxarle ay Muxibbo iyo Samaan ku tuurtuureen oo ay ku yidhaahdeen xishoodka badan iska daa oo sheekee. Hase ahaatee saxarle xishood dartii way eegi kari weyday wejiga Samaan. Isagana waxaad moodaysay inuu iyada daawanayo. Intay cuntada cunayeenna wax badan isma ay odhan, laakiin markii ay qadeeyeen oo macmacaan iyo kafee loo keenay kadib ayuu Samaan gacantiisa midig inta uu miiska saaray xaggii saxarle u fidiyey. Saxarle oo weli xishood xad-dhaaf ahi wejigeeda ka muuqda ayaa iyana gacanteeda soo fidisay, iyada oo aad moodid in ay gariirayso. Gacanteedii oo weli hawada heehaabaysa ayaa intay Muxibba ku dhegtay tii Samaan ku dul qabatay. Kadibna saddexdoodii ayaa isku dhaygagay. Samaan oo weli gacantiisii dul saaran tahay gacantii saxarle, labadeeda indhoodna eegaya ayaa yidhi, saxarle, walaashay Muxibbo waxba ka qarsan maayo oo wax walba way la socotaa. Sidii aan hore kuugu sheegay, ninkii aad sugayseen waa aniga, ninka ku rabaana waa aniga. Waxa kale oo uu sheegay in sababta uu Kenya uga soo noqday ahayd in uu reerka soo salaamo, siina guursado haddii Ilaahay uu qadaro. Laakiin markii uu iyada arkay, ogaadayna in aan la qabin, uu go'aan ku gaadhay in aanu cid kale raadin haddii ay iyadu aqbasho. Muxibba ayaa intay mar kale labadoodii gacmood xoog isugu cadaadisay tidhi, waanu aqbalnay. Samaan oo Muxibbo la kaftamaya ayaa yidhi, ma labadiinuba? Iyagoo weli gacmahoodii isdul saaran yihiin oo is eegaya ayaa gabadhii u adeegaysay isa soo dul taagtay oo weydiisay inay wax kale u baahan yihiin. Markii ay lacagtii bixiyeenna waxay bilaabeen inay magaalada dhex lugeeyaan si ay u daawadaan. Sidii ay marba dukaan qurux badan u gelayeen oo uga baxayeen ayay markii dambe galeen dukaan dahabka iyo alaabta dumarku isku qurxiyaan lagu iibiyo. Muxibba ayaa fargalo qurux badan midba mar isku cabirtay. Markii ay mid gashataba saxarle ayay weydiinaysay inuu ku qurux badan yahay gacanteeda. Saxarle ayaa Muxibbo ku tidhi, haa, kani aad buu kuugu qurux badan yahay. Intay farteedii ka soo saartay ayay ku tidhi saxarle, bal adiguna isku eeg. Muxibba ayaa markay saxarle farteedii gelisay fargalkii ku tidhi, ka waran. Inta ay si fiican u eegtay ayay ugu jawaabtay, aad ayuu u qurux badan yahay. Samaan oo hoos ka eegaya sheekada labada hablood ka dhex socotaa ayaa markuu arkay inay saxarle fargalkii ka heshay xaggii shaqaalaha u dhaqaaqay si uu lacagta u bixiyo. Markii uu lacagtii bixiyey ayuu ku soo noqday saxarle iyo Muxibbo oo weli fargalkii quruxdiisa ku mashquulsan. Samaan ayaa hablihii weydiiyey, haye, ma baxna? Saxarle oo isku dayeysay in ay fargalkii iska saarta ayaa tidhi, haa, diyaar baanu nahay. Muxibba ayaa intay gacantii saxarle jiiday si ay u dhaqaaqaan ku tidhi, ha saarin, waa la bixiyeye. Saxarle oo aan arkayn markii uu Samaan lacagta bixiyey ayaa iyadoo yaaban weydiisay yaa bixiyey. Muxibba ayaa intay indhaha u gedisay dhinaca Samaan tidhi, yaa kale. Saxarle oo fahamtay in mu'amarad loo dhigay ayaa intay madaxa hoos u ruxday tidhi, waan gartay. Markay dukaankii bannaanka uga soo baxeenna waxa uu Samaan u sheegay in uu magaalada ballan ku leeyahay, sidaas darteedna ay tagsi raacaan oo xaafadii ku laabtaan. Kadibna waxa uu joojiyey tagsi. Markii ay galeenna intuu lacagtii tagsiga Muxibbo u dhiibay ayuu ku yidhi, hadhow baan is arki doonaa.
intii ay dhexda ku sii jireen saxarle hadal badan ma odhan, inkasta oo ay qadarin aad u weyn u haysay Samaan iyo reerkooda, may hubin marxaladda ay ku sugnayd darteed in guur munaasib u yahay. hase ahaatee waxa aad ula kaftamaysay Muxibo oo rabtay inay xishoodka iyo walwalkaba ka dejiso. Markii ay gurigii soo gaadheen waxaa daaradda taagnaa Madiina iyo haweeney dariska ah oo u soo wareegtay. Madiina ayaa weydiisay, haye maanta waad fogaateene, xaggeed tagteen? Muxibo oo xaggii qolkeeda usii socota ayaa tidhi, maanta beledka ayaanu u dhaadhacnay oo waanu soo dalxiisnay. muddo 20 daqiiqo ku dhow markii ay qolkii ku jireen oo dharkii iska bedeleen ayaa Madiina qolkii hablaha gashay. intay sariirtii Muxibo gees kaga fadhiisatay ayay tidhi, haye maxaad maanta la soo kulanteen? intii aanay u jawaabin Muxibo iyo Saxarle midkoodna ayaa Madiina waxay aragtay fargalka dhalaalaya ee gacanta Saxarle ku jira. intay mashxarad ku dhufatay ayay tidhi, maasha Allah, miyaad aqbashay? Muxibo oo isku yaxyaxday ayaa hooyadeed ugu jawaabtay, hooyo hana kashifin, Saxarle yaanay u malayn in loo tashadaye. Madiina oo kalsooni muujinaysa ayaa tidhi, naa wax wanaagsan baa loogu tashaday haddii loo tashadaye, abshir iyo khayr dheh. inkasta oo ay hadalkii Muxibo ay Madiina ka dareentay in aanay arrintu weli mid dhamaatay ahayn, haddana waxay fahmi weyday meesha ay Saxarle fargalka cusub ka keentay. wax yar kadibna intay iska kacday ayay tidhi, salaadii cishaha ayaa i dhaafaysee, maca salaama. Saxarle inkasta oo aanay doodii Madiina iyo Muxibo dhex gelin, haddana way iska fahamtay in arrinta reer Cabdulla u dhammaayeen. markii ay salaadii cisho tukatay ayay Madiina intii albaabka qolkeedii soo joogsatay Muxibo u yeedhay, waxayna isu raaceen qolkii Madiina, halkaas oo ay ku sheekaysanayeen muddo saacad ka badan. muddadii ay sheekaysanayeen waxay Muxibo hooyadeed u sheegtay in aanay Saxarle weli haye Samaan ku odhan, laakiin sida indhaheeda ka muuqatay iyada lafteedu ay Samaan ka heshay. hase ahaatee waxa keliya ee ay la aamustay ee ay jawaabta u bixin weyday ay tahay iyada oo yara xishoonaysa iyo dhibaatadii soo gaadhay oo weli maskaxdeedu la rafanayso. Madiina ayaa ugu jawaabtay Muxibo, dhibaatadu wayna soo wada martay inay sabirta ayay u baahan tahay. Muxibo ayaa hooyadeed Madiina ku tidhi, hooyo dhibaatadu midaad mooday maaha ee waa mid dhawaan ku dhacday. kadibna waxay uga sheekaysay xiriirkii dheeraa ee Saxarle iyo Keenadiid ka dhaxeeyay iyo sida uu ugu wacad furay. waxa kale oo ay u sheegtay in wacad furka ka sakow uu naagtii Dabeeco ee ay Saxarle adduunka ugu nacbayd uu guursaday. Madiina oo taariikhda Saxarle iyo sheekooyinka guriga Cadar Duwane si fiican ula socotay, labadii indhood ayaa yaab dartii soo baxay. waxaanay rumaysan weyday falka xun ee ninkaasi ku kacay. kadibna intay tusbaxeedii labada gacmood kor ugu qabatay oo wareejisay ayay tidhi, nin Soomaaliyeed aamin ma laha. Madiina iyo Muxibo oo weli sor fadhiyo oo aad moodid in hadalkii ka dhammaaday ayaa gabarh jaarka ah oo ordaysa albaabka ka soo gashay iyadoo af Sawaaxili ku hadlaysa. Madiina ayaa Muxibo weydiisay, naa maxay leedahay midani? Muxibo ayaa intay booday oo fadhigii ka kacday tidhi, hooyo wiilkeeni ayaa la xidhay. Madiina ayaa intay fadhigii ka ruqaansatay tidhi, naa waa maxay masakadu? oo ahaa erey ay ku dhawaaqaysay gabadhii u soo gashay ee af Sawaaxiliga ku hadlaysay. Muxibo ayaa iyadoo xaggii bannaanka usii ordaysa tidhi, hooyo waa qafaal, wiilkeennii waa la kaxaystay. Muxibo oo albaabka bannaanka ka sii baxaysa oo hadalka sii wadata ayaa tidhi, waa Samaan. waxaa iyana markii ay hadalkii xadhigga maqashay bannaanka u soo baxday Saxarle oo wejigeeda naxdin weyni ka muuqato. Madiina iyo Saxarle oo weli daaradda taagan ayaa bannaanka waxaa ka soo noqotay Muxibo oo tidhi, waa masako ee dibadda ha u soo bixina. markii ay Madiina weydiisay Muxibo waxay tahay masakaduna, waxay u sheegtay inay tahay tarxiil Soomaalida lagu qaqabanayo. Madiina ayaa Muxibo oo albaabka dibadda oo in yari ka furan yahay sii taagan oo bannaanka sii eegaysa weydiisay, waa markii askarta Kenyaatigu marka ay lacag la'aantu ku dhacdo dadka urursan jireen, miyaanu sharcigiisii Mareykanka qaadan? Madiina oo hadalka sii wadataa, Muxibona la hadlaysa ayaa tidhi, horta kaale albaabka xidh oo dharkiisii ka baadh sharcigiisii. Muxibo oo ordaysa ayaa markiiba qolkii Samaan seexan jiray gashay, kadibna bilowday inay dharkiisii mid mid u baadho. Saxarle ayaa intay qolkii ka daba gashay Muxibo weydiisay, ma ku jiraa? Muxibo ayaa intay baasaboorkii Samaan jeebkiisa ka soo saartay. Saxarle oo weli wejigeeda warwar ka muuqdana tustay oo tidhi, alla waa kan. Saxarle ayaa intay gacanteedii bidix afka saartay tidhi, walaala maxaynu samaynaa? Muxibo iyo Saxarle oo istaba socda ayaa u yimid Madiina oo weli daaradda taagan oo tustay baasaboorkii Samaan. Madiina ayaa Saxarle iyo Muxibo ku tidhi, bannaanka ha u bixina,
yaan idinkana la idin tarxiiline u yeedha cabdi jaamac isaga ayaa dadkan afgaranaye. kadibna Muxiba ayaa intay qolkii ku laabatay taleefankii qabsatay si ay u wacdo cabdi jaamac oo ay daris ahaayeen dowladda Kenya oo shaqeeya. markii ay la hadashay kadibna waxa uu sheegay inay hadda waqti dambe tahay oo ay adag tahay in la ogaado meesha la geeyay. waxa kale oo uu sheegay in askartu ay dadka baabuur ku qaataan oo ay magaalada kula dhex wareegaan si ay lacag uga qaataan inta aanay xarunta booliiska geyn. inkastoo ay Muxiba muddo ku adkaysatay inuu raaco, waxa uu cabdi jaamac ugu dambeyntii ka dhaadhiciyay in waqtiga hadda la joogo ay aad u adag tahay in la helo walaalkeed, laakiin uu subaxdii raaci karo si ay xarunta booliiska uga soo baadhaan. habeenkaas walwal iyo walbahaar ma ay seexan. waxa gaar ahaan uu Saxarla xadhiga Samaan ku noqday mid ku soo kiciyay xasuus xun oo ay muddo isku dayeysay inay ka bogsato. waxay dib u xasuusatay xidhitaankii markii Cali Aboor garoonka diyaaradaha laga qabsaday iyo sidii dhibaatooyinkii ku dhacay ay nolosheeda dhaawac weyn ugu geysteen. inkastoo Madiina uu Samaan u ahaa wiilka keliya ee ay markaas rag ka lahayd, Muxibana uu u ahaa walaalka keliya ee reer Cabdulle ka hadhay, haddana waxaad moodaysay naxdinta iyo hurdo la-aanta wejiga Saxarla ka muuqday inay ka baaxad weyneyd warwarka ka muuqday wejiga Muxiba iyo Madiina. waxay dareentay xumad iyo xanuun hurdadii u diiday. inkastoo ay Madiina iyo Muxiba dhowr saacadood seexdeen intii aan waagu baryin ka hor, Saxarla sidii ay u fadhiday ee ay u fakaraysay ayaa qorraxdii ku soo baxday. waxay habeennimadii markii ay fakaraysay isweydiisay maxaa ninka ku doonaba dhibaatada ugu dhacda. shaki ayaa ka galay in nasiibkeedu xun yahay iyo in kale. inkastoo ay mar walba niyad wanaagsanaan jirtay oo ay isku qancin jirtay in Ilaahay maalin uun dhibka ka saari doono, habeenkaas qalbigeedii wanaagsanaa khalkhal weyn baa galay. xidhitaanka Samaanka Sakow waxay habeenkii qayb ka mid ah ka fakaraysay go'aanka ay ka gaari lahayd doonistii Samaan. inkastoo ay aad ugu niyad samayd, aaminsanaydna inuu yahay ruuxa ugu habboon ee ay maanta nafteeda iyo ayaheedaba ku aamini karto, haddana waxaan weli qalbigeeda ka dhammaan jacaylkii ay u haysay Keenadiid. waxaana shaki ka galay in warka loo sheegay ee guurku yahay mid 100% lagu kalsoonaan karo. dhakafaar ayaa ku dhacay, talana way ku caddaatay. markii ay qiyaastii 7:15 subaxnimo ahayd ayaa waxaa albaabka soo garaacay ninkii ay jaarka ahaayeen ee cabdi jaamac ee ballan qaaday inuu xarunta booliiska u raaci doono. waxaa markiiba oroday oo albaabkii furtay Saxarla oo awalba iska soo jeeday. waxa uu weydiiyey in ay diyaar yihiin iyo in kale. intay xaggii qolka Madiina u dhaqaaqday ayay tidhi wax yar sug. Saxarla ayaa intay albaabkii Madiina garaacday weydiisay eedo ma soo jeeda. Madiina oo markaas kabihii gashanaysa ayaa ugu jawaabtay haaye soo gal hooyo. Madiina oo hadalka sii wadata ayaa Saxarla weydiisay diyaar ma tahay Muxibo. intay xaggii musqusha u dhaqaaqday ayay ugu jawaabtay sug musqusha ayay ku jirtay aan eege. Saxarla oo daaradii dhex maraysa ayaa tidhi Muxibo. kadibna Muxiba ayaa qolkii heeka dhex tidhi. intay Saxarla xaggii qolka u dhaqaaqday ayay tidhi waad soo baxday miya. Muxiba ayaa Saxarla oo damacday inay labisato si ay u diyaar garowdo ku tidhi abbaayo adigu guriga sii ilaali, waadigii xalayna xanuunsaday ee seexan kari waayey. kadibna intay yara fakartay Saxarla ayay tidhi haye walaalo, Ilaahay khayr ha idinla soo kulansiiyo. Saxarla oo aan weli ducadii afkeeda ka dhammaan ayaa cabdi jaamac mar kale albaabkii soo garaacay oo yidhi diyaar ma tihiin, shaqa ayaan tegayaaye. kadibna Madiina iyo Muxiba oo degdegsan oo xoog u tallaabsanaya ayaa albaabkii dibadda ka baxay. ilaa iyo intii ay Madiina iyo Muxiba albaabka ka baxeen, Saxarli waxay ka fakaraysay jawaabtii Samaan ka sugayay haddii Ilaahay soo nabad celiyo. waxay ka warwarsanayd oo ay ka cabsi qabtay in Soomaaliya oo weli dagaalo ka socday loo masaafuriyo oo uu halkaas ku dhinto. waxaa ku soo noqnoqday oo ka dhammaan waayay afduubkii Cali Aboor loo geystay iyo sidii uu naftiisa ku waayay. waxaa ka soo wareegtay 2 saacadood ilaa iyo markii ay Muxiba iyo Madiina albaabka ka baxeen, iyadoo weli meeshii fadhido oo fargalkii farteeda ku jiray hoos u eegaysa oo salaaxaysa ayaa albaabka lagu soo garaacay. intay xoog u oroday ayay tidhi waa ayo. Samaan ayaa ugu jawaabay fur Saxarla waa Samaane. intay aad u faraxday ayay albaabkii degdeg u furtay. markii uu Samaan soo galay ayay farxad darteedii silowday oo isku duubtay. Samaan oo ogaa inay Saxarle aad u xishood badan tahay ayaa isaguna inta uu qabtay sii dayn waayey. intay isla yaabtay ayaa intay wejigiisa eegtay ay ku tidhi isiida. Samaan oo qosol yar muujinaya ayaa ugu jawaabay kuma sii daynaya ilaa iyo intaad jawaabtii aan kaa sugayay iga siinaysid. Saxarla oo naxdin darteed calaacalihii dhidideen ayaa hoos u tidhi
okay. Samaan oo aan weli sii dayn ayaa ku yidhi, okay, jawaab maahee, haa iyo maya miduuni dheh. Saxarla oo wadnaheeda boodboodkiisa uu Samaan laabtiisa ka dareemayay ayaa tidhi, haa. Inta uu sii daayay ayuu ku yidhi, waad iga farxisay. Isagoo hadalka sii wata ayuu yidhi, aaway hooye iyo muxibbo. Intay ugu jawaabtay, adiga ayay ku raadinayeen, ayay sii weydiisay, maad arkin miyaa? Waxa uu ugu jawaabay in aanu arkin. Lacagta lagu sii daayeyna ay ka bixiyeen wiilal ay saaxiiba yihiin oo mar la wada qabtay. Kadibna waqtigii yaraa ee ay firaaqada isu heleen ayay Saxarla iyo Samaan sheekaysteen. Waxaanay u sheegtay in habeenkii la qafaashay aad looga warwaray oo ay weliba iyadu xanuunsatay. Waxa uu isaguna u sheegay in sidaas iyo si ka badan uu uga warwari lahaa haddii iyada wax ku dhici lahaayeen. Waxa kale oo uu Saxarla u sheegay in aanay marna maskaxdiisa ka bixin ilaa iyo intii ay kala maqnaayeen. Samaan oo inta badan hadlayay, waxa uu markii dambe Saxarla weydiiyey haddii ay wax su'aalaha ka qabto dareenkiisa iyo arrinta guurka ee uu soo bandhigay. Saxarla oo ahayd dadka aadka u afka gaaban ee xishoodka badan ayaa waxay weydiisay in sababta uu guurka ugu soo jeediyey ay tahay inuu xaaladda ay ku sugan tahay uu ka naxayo in kale. Isagoo ay wejigiisa ka muuqatay inuu hadalka Saxarla ka xumaaday ayuu ugu jawaabay, haddii ay arrintu ahaan lahayd in aan kaa naxay keliya, walaashay muxibba oo kale ayaad iila mid ahaan lahayd oo si kale ayaan wax kuu tari lahaaye, ee si dhab ah ayaan kuu jecelahay, weligayna kuu jeclaa. Samaan oo hadalka sii wata ayaa yidhi, ma jiro qof aan adiga ahayn oo aan naftayda ku aamini karo. Saxarla oo wejigeeda kalsooni ka muuqata ayaa tidhi, waad mahadsan tahay. Samaan ayaa Saxarla oo madbaxa xaggiisa u sii socota ka daba yidhi, Saxarla, shaah keliya ayaa rabaa. Saxarla oo weli jikada ku jirta ayaa albaabka dibadda lasoo garaacay. Samaan ayaa intuu xaggii albaabka u dhaqaaqay yidhi, iska joog Saxarla, aniga ayaa furaye. Waa Madiine iyo muxibbo oo siday u raadinayeen Samaan soo hungoobay. Madiine ayaa Samaan weydiisay, war goormaad soo noqotay? Cabbaar iyagoo ka sheekaysanaya xaaladii qafaalka ayay Saxarla shaah xawaash leh oo kamkamaya soo diyaarisay. Muddo 2 saacadood ku dhow markii ay qafaalashadii Nairobi ka sheekaysanayeen, shaahiina la cabbay ayaa Samaan intuu xaggii qolkiisa u dhaqaaqay yidhi, maanta aniga iyo Saxarla qadada ha nagu darinaa, suuqa ayaanu tegaynaaye. Madiine oo qoslaysa ayaa intay dhinacii Saxarla eegtay tidhi, yaa ma intaanu maqnayn baad noo sii tashateen? Saxarla oo aan sheekada suuqa waxba kala socon ayaa intay isku xishootay tidhi, anigu waxba kalama socon sheekadaas. Waxay markiiba Madiine iyo muxibba dareemeen in sheekada Saxarla iyo Samaan hore u martay intii ay maqnaayeen, aadna way ugu farxeen. Galabtaas Saxarla iyo Samaan suuqa ayay u dhaadhaceen. Makhaayadaha tan ugu wanaagsan ayay ka qadeeyeen. Waxay ku wareegeen magaalada dhexdeeda iyagoo daawanaya bilicdeeda iyo dukaamada quruxda badan ee wax walba haya. Waxay Saxarla dib u xasuusatay maalintii iyadoo yar oo mii ka soo gashay ay suuqa xamar weyne dadka iyo waxa dhex yaala daawanaysay. Waxay ka fakartay maanta iyo maalintaas farqiga u dhaxeeya. Niyadda ayay Ilaahay uga mahadnaqday iyada oo leh, haddii aan taas ka soo badbaaday, Ilaahay wuu ii gargaaray. Waxay wareegaanba. Waxay socodkoodii ku soo khatimeen beerta caanka ah ee Uhuru Park. Waxay beerta marba dhinac u lugeeyaanba. Waxay markii dambe fadhiisteen geed hadhac ah hoostiisa oo ay muddo saacad iyo dheeraad ah ku sheekaysanayeen. Samaan ayaa intuu kamarad yar oo jeebka ugu jirtay la soo baxay Saxarla ku yidhi, inta aan qorraxdu dhicin aan sawir iska qaadno. Markii uu dhowr sawir oo kala duwan Saxarla ka qaaday, ayuu wiil iyo gabadh agtooda marayay weydiiyey haddii ay sawir labadooda ka qaadi karaan. Saxarla oo xishoonaysay ayaa dhinac uga durugtay Samaan. Ninkii dhalinyarada ahaa ee sawirka ka qaadaya ayaa isagoo qoslaya Samaan iyo Saxarla ku yidhi, get closer and smile, oo macnaheedu yahay isku dhowaada oo qosla. Samaan ayaa inta uu xaggii Saxarla u durkay garabka qabsaday oo xaggiisii u soo riixay. Saxarla oo xishoodkii ka batay ayaa sawirkii kharribtay, iyadoo markasta oo sawir laga qaadaba ay indhaha isku haysay ama dhinac ama hoos eegaysay. Ugu dambeyntiina sawirkii shanaad ee laga qaaday ayaa si fiican u soo baxay. Maalintaas kelikeedii dambe farxad ayay ugu dhammaatay, inkastoo ay Saxarla xishood weyn dareemaysay, warwarna ka qabtay ku dhiirashada Samaan oo dhowr jeer iyagoo lugeynaya gacanta iyo garabka qabsaday. Inkastoo ay muddo dheer Samaan taqaanay, wax cabsiyana aanay ka qabin inuu sumcadeeda meel kaga dhaco, haddana nin la bixidda iyo qabqabsashada ayaa wax ku cusub noqday. Dhowr jeerna gacantiisa ayay iska fujisay iyadoo wejigeeda xishood weyne qayiray.
intaanay xaafadii u caraabin ayay meel jallaatada laga cuno fadhiisteen oo cabbaar kusii sheekaysteen. kadibna intuu samaan tagsi u yeedhay ayay xaafadii u caraabeen. markii ay gurigii soo gaadheen, saxarla waxaa ku soo baxay daalkii iyo hurda la-aantii ku dhacay habeenkii samaan la qafaashay. iyadoo weli dharkii ay bannaanka kaga timid gashan ayay damacday inay sariirta isku yaro kala bixiso, kadibna way gamacday. intii ay saxarli huruday, Madiina ayaa samaan qolkeedii ugu yeedhay, halkaasoo ay cabbaar ku sheekaysanayeen. waxay dib u xasuusisay in qiimaha iyo qaayaha ay saxarli leedahay mid ka weyn oo gabadh kale loo dhigaa aanu jirin. waxay u sheegtay in dhibka, silaca iyo waayo aragnimada adduunka ee ay soo martay ay ka caawinayso dhibaato kasta oo guurka ama guriga kala soo gudboonaata. ugu dambayntiina, markii ay Madiini waanadeedii dhammaysatay, waxay isku raaceen in meherkoodu waa meherka samaan iyo saxarle uu dhaco inta aanu tegin. waxay u sheegtay in waxa wanaagsan ee aadan huri doonin la hormarsado. waxa kale oo ay u sheegtay in saxarla ninkii hore ee ay aamintay qalbi jabiyey, kadibna markii juuqba laga waayey markii uu dhoofay. welina wixii uu baday ay maskaxdeeda ka dhex guuxayaan, inkastoo samaan u arkayay inay adag tahay in nikaax la diyaariyo maadaama waqtigii uu tegi lahaa soo dhowaaday. haddana taladii hooyadii ayuu qaatay. kadibna markay isaga iyo hooyadii hadalkii dhammaysteen, intuu baxay ayuu qolkii saxarli ku jirtay ku garaacay. markii ay tidhi waayo ee uu isu sheegayna albaabkii ayay ka furtay. markuu qolkii galayna sariirtay saxarli ku fadhiday ayuu dhinac kaga fadhiistay. saxarlo oo dhoola cadaynaysa oo weli luladii ka muuqata ayaa intay samaan xaggiisa jalleecday weydiisay, caawayaad u tashanayseen? isagoo qoslaya oo xaggeeda eegaya ayuu ugu jawaabay, caawa adiga ayaa lagu tashanayay. markay dhowr daqiiqo kaftankii isku celceliyeenna, waxa uu u sheegay in wakhtigii uu dhoofayay soo dhowaaday oo 2 maalmood oo keliyii ka hadhsan yihiin. sidaas darteed uu go'aansaday inay meherka sameeyaan inta aanu dhoofin. inkastoo ay saxarli niyadda ka jabtay Kennedy oo ay go'aansatay inay samaan iskaga nasiibsato, haddana waxay arrintii ula muuqatay in xoogaa degdeg ahi ku jiro. samaan ayaa saxarlo oo weli fakaraysa weydiiyey, anigu sabtida ayaan dhoofayaaye, ka waran haddii aynu jimcaha ka dhigano nikaaxa? saxarlo oo hoos u foorarto oo labadeeda calaacalood isku xoqaysa ayaa samaan weydiisay, jimcaha oo miyaana yara degdeg ahayn? samaan oo wejigiisa warwar ka muuqda ayaa saxarle ku yidhi, degdeg abaayo, wakhtigaan soo noqon doono ilaahay baa og. mana jecli in iyada oo aan xadhig isugu keen xidhnayn aan iska tago. haddii shaki kale kugu jiro waad ii sheegi kartaa, laakiin aniga way iga go-an tahay. qof aan adiga ahayn ma rabo, niyadaydana kuma jiro. intay dhinaciisa jalleecday iyadoo weli wejigeeda fakar ka muuqda ayay tidhi, haye. kadibna intuu gacanta labada garab ka saaray ayuu wejigeeda eegay, isagoo aad moodid inuu ku soo dhowaanayo. iyadoo wejigeeda xishood ka muuqda ayay gacantiisii intay iska qaaday ku tidhi, maxaa hadda inoo talo ah? inta uu istaagay ayuu yidhi, insha allah waagu ha bariyo, markaas ayaynu ku dhaqaaqaynaa wixii howl ah. kadibna waxa uu tegay qolkii Madiine iyo Muxibba joogeen si ay hawsha iyo qabanqaabada meherka uga wada tashadaan. markii uu qolkii galay ayaa waxa uu arkay ayeydii Muumino oo in muddo ahayd ku maqnayd magaalada Gaariso oo gabadh ay habaryar u ahayd oo halkaas lagu qabo u tagtay. markii uu samaan qolka soo galay, waxa dood kululi ka dhex socotay Madiine iyo hooyadeed. waxay Muumino aad uga soo horjeeday guurka samaan iyo saxarla, iyadoo sabab uga dhigaysay in hadda ka hor la soo guursaday oo ay garoob tahay, iyo iyadoon cidina aqoon waxa iyo cidda ay tahay. Madiinina waxay ku doodaysay in saxarla asalkeeda iyo meesha ay ka soo jeeda la yaqaano, oo jaamac dirir ay isku reer yihiin. guurkeedii horena waxay Madiine ka tidhi, calafuun buu ahaaye, weli waad aragtaa inay gabadh yar oo qurux iyo qiimaba ka muuqdaan tahay. Muumino oo doodeedii wadata ayaa ku tidhi Madiina, maxaa kalifaya ninkan Ameerika ka yimid inuu naag aan isku dhammaystirnayn guursado? maanta haddii 1,000 hablood halkaas la soo taago midda uu doono ayuu kala bixi karaaye. qir iyo qir ayaa la isku noqday, murankoodiina meel xun ayuu gaadhay. Muxibba oo dhowr jeer isku dayday inay kala qaboojisana afka ayaa lagaga booday. samaan oo u adkaysan waayey dooda aan micnaha lahayn ee meesha ka socota ayaa isagoo aan kelmad odhan xaggii qolkiisa u dhaqaaqay. intii dooda labada dumar ahi socotay, saxarli waxay ku jirtay feker aad u dheer. waxay isweydiinaysay sidee ayaa meherkeedu u dhacayaa haddii aan cid tol iyo qaraabo ahi midna joogin.
waxay dib u xasuusatay arooskii Cali Aboor iyo silic dilkii ay qadar duwane ku samaysay. Waxay mar kale dareentay kelinimo iyo cid la'aan. Saxarle iyo Samaan oo xanaaqsan oo qolkii dumarku joogeen ka soo baxay ayaa dhexda isku dhaafay. Saxarle oo ka shakiday waxa ka soo xanaajiyay Samaan ayaa qolkiiba ay gelinay dibadda joogsatay si ay wax yar u dhageysato waxa meesha ka socda. Waxay maqashay doodii Madiine iyo hooyadeed Muumine ka dhex socotay. Waxa ka dhaadhici waayay hadallada xaqiraada ah ee duqdu ku lahayd oo ay qof aad u wanaagsan u arkaysay ay ku hadlayso. Kadibna qolkii hore uma ay gelinay iyadoo xanaaqsan ayay fadhiisatay xatabad yar oo guriga ku dhex tiilay. Muxibbo oo dareentay sanqadhi ayaa markay Saxarle albaabka ka dhaqaaqday bannaanka u soo baxday. Kadibna waxay aragtay Saxarle oo markaas xatabadii fadhiisatay. Muxibbo ayaa intay dhinac fadhiisatay oo garabka gacanta ka saartay ku tidhi, "Abbaaya miyaad maqlaysay murankii islaamaha?" Saxarle oo ciil dartiis hadalku ka soo bixi waayay ayaa madaxa hoos u ruxday iyadoo haa ka wada. Muxibbo oo Saxarle maslaxaysa ayaa ku tidhi, "Abbaayo, raalli ka ah duqdanayeeyo. Waa qof gaboobay oo weli qabiil iyo wax laga tegay aaminsane." Saxarle waxay ku hadashay ayay garan weyday. Niyad kici iyo rajadii ay ka lahayd inay Samaan guursatana mugdi aad u weyn ayaa galay. Dhibaatadii ay islahayd maanta ayaad ka baxaysaana mar kale ayay soo dul joogsatay. Muxibbo iyo Saxarle muddo ayay isdhinac fadhiyeen iyagoo aan kelmadiis odhan. Sidoo kale Madiine iyo hooyadeedna sidii ayay isu hor fadhiyeen iyagoo markii burankoodii meel xun gaadhay iska kala aamusay. Samaanna qolkiisii kama soo bixin isagoo kursi ku fadhiya hoosna u fooraro oo gacmaha madaxa ku haya kana fekeraya wixii uu yeeli lahaa. Samaan guurka Saxarle marna shaki kagama jirin balse waxa uu ka fekerayay sidii uu ayeydii u qancin lahaa guurkiisuna uu noqon lahaa mid aan reerka xumaata iyo khilaafu soo jiidin. Muxibbo ayaa u yeedhay gabadhii u shaqaynaysay oo markaa suuqa ka soo laabatay oo khudradii iyo hilibkii loo diray soo iibisay sida. Waxaana uu sheegtay in iyadoo Muxibbo ahi cuntada karinaysa maanta waxay rabtay inay cunto karinta isku ilowsiiso waxa meesha ka socda. Galabtaas cirkii ayaa daruuro madoobi soo buuxiyeen. Waxa xoog loo maqlayay onkadka xoogga weyn waxaana daruuraha ka dhex qarxayay hilaac iyo danab ay indhuhu kugu daraandarayaan. Muumine oo bakooradeedii ku tukubaysa ayaa bannaanka u soo baxday. Waxay aragtay cirka mugdigu soo hadheeyay iyo tuka madow oo gidaarka dayrka ku taagan. Saxarle oo weli xatabadii fadhida ayaa intay eegtay oo xaggii musqusha u dhaqaaqday ay tidhi, "Cunugtan waa qumayo. Dhib oo dhan baa daba socota. Shakigagama jiro." Muxibbo oo hadalkii ayeeyadeed maqashay ayaa intay xaggeedii u dhaqaaqday ku tidhi, "Ayeeyo qof weyn baa tahaye. Waxaad dhahaysid u fiirso. Gabadhan miskiinta ahna ha u gafin." Intii ay Muxibbo iyo ayeeyadeed murmayeen ayay Saxarle albaabka bannaanka ka baxday. Wax yar kadib ayay Muxibbo dareentay inay Saxarle tagtay. Isla markiibana bannaanka ayay u oroday si ay u soo celiso. Meel kasta ayay ka eegtay. Kadibna iyadoo ka soo quusatay ayay gurigii ku soo laabatay. Isla markiiba qolkiisii ayay Samaan ugu gashay una sheegtay inay Saxarle tagtay. Si degdeg ah ayuu kabihii u gashaday si uu uga daba tago. Markii uu albaabkii qolka soo joogsaday ayaa waxaa bilowday dhibicdii roobkii onkadka hilaaca iyo dabaysha watay. Kadibna Muxibbo ayuu weydiiyey, "Dalladii ma taala?" Markii ay Maya ugu jawaabtayna dhibicdii roobka ayuu dhex qaaday. Muumine iyadoo roobkii qolka ka sii gelaysa ayay tidhi, "Ninkan gebgeb leh yaa dhaha meel fadhiiso. Naaga adduunka waa buuxaane." 2 saacadood in ka badan markii uu maqnaa ayuu Samaan soo laabtay isagoo wada qoyi oo biyo korkiisa iyo dharkiisaba ka dareerayaan. Saxarlena ka soo quustay. Shaarkii uu gashanaa intuu iska bixiyey oo biyihii ka maroojiyay ayuu xadhig dharka lagu qallajiyay oo daaradda ku xidhnaa sudhay. Kadibna uu qolkiisii galay isagoo wejigiisa xanaaq weyni ka muuqdo. Habeenkaas oo dhar roobkii ma kala qaadin. Samaanna qolkii uu galay kama soo bixin. Muxibbo ayaa mar cunto u geysay si afkiisa ma uu saarin. Cuntadiina miiskii ay Muxibbo saartay ayaa waagii ugu bariyay. Isla habeenkaas mar kale ayaa muran weyni dhex maray Madiine iyo hooyadeed iyadoo Madiine ku eedaysay Muumine inay dhibaatadaas oo dhan iyadu sababtay. Waxa kale oo ay ogaadeen in sharcigii qaxoontiga ee ay Saxarle Kenya ku joogtay aanay qaadan oo ay ka tagtay. warwarka ugu weyn ee Madiine iyo Muxibbo hayayna waxa uu ahaa iyagoo ka baqayay in la qabto oo la xidho ama Soomaaliya loo masaafuriyo. 5 cisho ayaa ka soo wareegtay maalintii Saxarle albaabka ka baxday. Maalintii nikaaxeedu dhici lahaa iyo maalintii Samaan dhoofi lahaaba waa la dhaafay. 10 cisho oo kale ayuu safarkiisii ku darsaday si uu Saxarle baadidoonkeeda uga quusto. Meel kasta oo uu ku tuhmayay ayuu ka raadiyay
wixii station booliis magaalada ku yiilayna wuu isu soo maray. alla iga dhasho kani iibiya heligu dhow alla iga dhasho kani iibiya heligu dhow. daawadayaal intaa waxaynu ku soo afmeeri doonaa qaybtii 22aad ee buugga sheekafaneeda ah ee Saxarla ee uu qoray Faarax Maxamuud. intaynu qaybta xigta ku kulmi doonana waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.